الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام يا جماعتي. أنا صنع لي سكوا على نفسي على سلام كفر بيش ويا كمات. وأنا أقول فرح سنة إيمانتا. أنا أسولي بعضنا حفلة دبور حدا بدن. وأنا كمان نقلنا وزارة الدولة هوادا يقرأون كي مامور الكيسة يشغلها يعيد ماذا. سوتك اللي هنا إنه الحمد لله كان سوتني بعضنا. كنا دافرنا قيمة طلبات المشروع لما يستركه قرونك عالمي بوساسو الهوشي إن شاء الله وإنما دونتا وحيابا يروا فرسموينا أيات شراء ولا لما يسترمي لكن حارج شيء إلى ينا إسكسو لما هذا كتير هاي هذا رنتي حفرتنا وحي أهضم معنا أنتي كسو قيب قاعدتي برنامج كأنتي سوري أنتي سدم بابا أو يقول الرئيسو دولة الرياض دات كارا لا تصو وناجا يهرمركا كنت لا تشغل عليها البطلان لو أنا بعي أنا كفاية يوسف وحنا مركا مشروع إن شاء الله هو بلا من دونا وقت عنديري وأنا نمان دونا وحنا رجعين الناس لو كان مشاريع كارين دلك أنت سكرين أنا ضد أنها النقطة أما تصور عليها النقطة إن شاء الله ينهي الجلال وأنا جعلنا كنتي إن بدنا كذي يضحنا نقوم كرتو اشتزيرتكم أنت الله هذا أنا وأنا كله أنت كرنا أي دبعتك وشرتو لفتك أيهو دائما من نبتقرينه شبابك هذا شدتك وهي يكون فرصة حروق السياحي إنك أنا وضوء يدينه وأنا وصل دونه وأتي أنه رنتي كدفع عن الدلك يجا مركي إن شاء الله واحد شيء وأنا الله اسكحرا ويا رنتي خرمر لما قاري كورونا بتقري الآن خرمر كلفتي جيشنا وكذا كاتنا بتقري هذا الله اسكحرين horumarku wuxuu keenayaa in dadku ay dhaqaale helaan wuxuu keenayaa in shaqo la helo wuxuu keenayaa in dhalinteenu runtii rajada beeshay ay rajo yeeshaan inay wadankooda aaminaan oo ka shaqaystaan in waxyaabaha hadda soo jiidanayo tahriibka iyo xaqjirnimada iyo burcadbadeeda ay ka mid yihiin ay ka waantoomaan sababtoo qofku wuxuu haystaa wax kale oo noloshiisa ku maareeyo helayaa marka ujeedadu dambaysa mashruuca waxa ka dambeeyay waxa weeye waa nolosha bini aadanka iyo noloshii dadka reer Puntland iyo Soomaaliya in kor loogu qaado weeye ujeedada ka dambaysa mashruucu marka kaabayaasha dhaqaalaha sababta mar walba annaga Puntland ahaan aniga madaxweyne ahaan aan mar walba u riixaynahay waxa weeye waxaan ognahay haddii aan kaabayaasha dhaqaalihii isbedelinin wajiga Soomaaliya isma bedelayo horumar lama gaari karo sababtoo ah khayraadkeena tirada badan oo haysano oo nooc walba leh wadankan wadan qaniya weeye waa ummad yaani dad fakhri ah oo ku dul fadhiya dhul qaniya weeye waxa weeye waxaan ku fadhinaa wiyaasin oo boobnahay waxaan ku fadhinaa dahab baan ku fadhinaa maxaa keenay inaan ka faa'iideysan weyno farsamadii dhaqaalihii aqoontii iyo kaabayaasha dhaqaalaha noo hirgelin noo suurtagelin lahaa ayaanan haysan inaanu bilownaan la ka rabaa inaanu durjinaan la ka rabaa maalma meelna gaarsidaan la ka rabaa insha Allah waa rajaynayaa in israacado dekadihii jidadkii aeroportooyinka inta markii la helo dabcan ka faa'iideysigii beerihii xoolihii kalluumaysigii macdantii iyo shidaalkii intana waa gaari doona insha Allah dirayna laakiin waxa la yiraahdo waxa waa fureen nabadda waa sax weey furaha nabaddu horumarka sababtoo loo soo dhiiranayo loo imaanayo waxa kaliya hadda aan rabnaa maaha waa bilow waxaan wadamada ka codsanaynaa ama deeqaha ama igada aan weydiisanayno ama aan weydiisanayno Talyaaniga iyo dawladda kaleba laakiin waxa kale oo muhiimka waxa weeye inaan helo dad private sector ka
أما سيدتك مالقشي يعني هلو عالمية يعني هذا مثلا أو تجي كم إذا هاي دولة السعودية العربية أنا هذه إن لهلو markii aanu helo aeroport wanaagsan dekad wanaagsan jid wanaagsan طبعا marka qofkii ganacsadaha ahaa ama se rabay maalgashigu waa imaanaya sababtoo wuxuu rabaa aeroport uu ka dhoofo wuxuu rabaa dekad wax ka dhoofsado wuxuu rabaa jid uu qaado inta inuu helo weeye inta aan dadku u yeelin marka in waxa ugu muhiimsan hadhowto shaqo abuurka iyo horumarku ka imaan karaahay ma aha dawladda Puntland ma aha dawladda wax yar nasiya waxa weeye dad inaanu helo dalkan khayraadka ku jira kana faa'iideysta inagana nooga faa'iideeyo insha Allah laakiin wax walba Soomaaliya dhibtan haysta waxay tahay Puntland ma sharxi kartid ma oran kartid Puntland waa meel nabada sababtoo waxa weeye Puntland Soomaaliya ka tirsan tahay Soomaaliya markii masaashada la soo raacsanana waxa meel ka soo baxaya burcad badee shabaab balaayo jin marka waxaan rabnaa in Puntland degto Puntland qayb ka qaadato Soomaaliya inta kale inay degto sababtoo aniga ma socon karo kaliya haddii inta kale ay dhib ka jirto dhaqaalaha waxa jirta wax la yiraahdo network externality oo maxay tahay waxa weeye ka soo qaaday kaliya telefoon baa leedahay telefoon baa waxa la yiri Abduuli baa telefoonka kaligiisa haysanay Abduul haduusan qof kale oo telefoon haysto oo kula hadlo uusan haysan telefoon ma taraya waxba ma taraya inagu marka Puntland baa barwaaqo haysanaysa gees subuusaysa waxa ma jirto waa in kala inay heshaan ina u dacwoonaan rabnaa ina wax hadallaan rabnaa niraano Puntland waa timaadeen xaqana taga ka shaqeeya dadkana horumar gaarsiin insha Allah arinta waxaan marka aan roobsho kula laabto amniga hadaan adkaysan oo aan meel amniga loogu wada soo jeesan waxa haddaysana waa burburayaan wax dambo imaanayaan ma jiraan arintaas marka waa ku celinay waana ku celinayaa hadda qof jiriyo been istaaga shabaab buuraha yani aba meel ku soo dhuunta intaba waxa rabaa meel aan soo istaagno waxaan u gaari karaa waxa weeye waa amni iyo midnimo way waxaan ku gaaray waxaan shabaabadkaanay waata waxa horumarku ku imaanaya waa ka wax hadda aan rabnaa rajadeenu ay ku dhisan tahayna inta weeye waxa aan kaga bedelayn meelo badan oo Soomaaliya ka midan intaas ay ahayd intii ka shaqeyn jirtay oo ismadu ugu horeeya oo culimadu ay ka mid yihiin oo wax garad ku ka mid yahay waxa weeye ma oran karo inta in ka badan waxaan rabnaa dalka amnigiisa in laga qayb qaato lagu dadaalo fardi shakhsi iyo mujtamaca guud ahaan intaba inaan ka wada shaqeyno aad iyo aad maasantay waxaan rabaa maanta meesha waxa la yiri laba qol haysatayo laba qol waxay ahayd Taliyaan qolo la yiraahdo qolada waxay juriilo qolo la yiraahdo juriilo waxay la taabaan kursiga la isku haystayda إن شاء الله أنت شقيسة ورنت دلاشنا أو ما عندنا غيرنا أما الشخصيات هذا أما نحكي لها النقطة أنا أنتظر ما أسميه قول يا خير بعد شيء